نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول قول الحق ولو كان مرة حق هدو سبر وكقرار يا شيء أنا حوجان شيء أيضا حكت عرته أنا وقت دارنا إن أيك أيكدم بيان قبلها الصومالي ده أو ولا شيء أو هو يده أو إدده أو قاون كل طبعا ونكسن دعوة القصور دبعد هالكار لقد داونسان وصعد ميديا مرة كداوتان برنامج سجوجر المها سياسة ده المها بشدة maanta barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa barnaamij gaar ah aan ku eegi doono maxaa ka dhaxeeya majlistada Nimca Joker iyo wariye Maxamuud Daahir halkuu ayuu ka soo galay dagaalka Cumar Karish oo loo yaqaano CK wareysi gaar aan la yeelanay wariye Maxamuud Carab ayaa horsocodsiiyay wareysi ku aadan arrintaani fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir waan ku mahadsantahay daawashada aad daawanaysaan barnaamijyadeena soo laabasho wanaagsan bilooyinkii ugu dambeeyay waxaa social media wariyay in majlistada Nimca Joker ee ka ganacsato muuqaalada galmada ee gabdhaha Soomaali ee sameystay website-yo arintaasi warbixin la xiriirta wareysi aan ka qaadnay wariye Maxamuud Carab ayaa inoo sharxi doona wariye Maxamuud Maxamed Daahir ayaa inaga aqbalay inaan wareysi gaar aan kala yeelano arintani la xiriirta Nimca Joker la sheegay in ay ka ganacsato muuqaalada galmada ee gabdhaha ee Soomaaliyeed waxaan kale aan su'aal ka weydiinay halkuu ayuu ka soo galay arintani Cumar Karish oo loo yaqaano CK Maxamuud Carab ayaa inoo faahfaahin doona wariye Maxamuud Maxamed Daahir ee ku soo dhawaad horsocod media waxaan ku bilaaw doonaa Nimca Joker arinteeda Nimca Joker dagaal noocay ayaa idinka dhaxeeya maxaa qadar adiga iyo horsocod media aad iyo ma santihiin waana idinka mahad celinayaa bulshada adeega u haysaan niyo ma jirto wax dagaal ah oo aniga iyo gabadhaas lagu magacaabo Nimca Joker naga dhaxeeyo mana dagaali karno wax hadda aan ku dagaalno meesha mayaal aniga nin waxaan ahay wariye oo soo bandhiga xogta xaqan u leeyahay qofka hadii qofka gurigiisa iska joogo wax hadda aan ka sheegay ma jirto qof hadii gurigiisa joogo khalaas laakiin waxaan aniga xaq aan u leeyahay xuriyada hadalkan ay siinaysaa qofka wuxuu yahay inaan sheego oo xogtan haye aan soo bandhigo aniga waxaan helay xog ku aadan waxa jira gabdho badan oo Soomaaliyeed oo inta badan la wareejiyay Facebook-yada messenger-ka la isku diro la soo galiyay website arimaha galmada ka hadla oo gabdho Soomaaliyeed ah waxaan helay xogtaas in Nimca Joker iyo rag kale oo Mareykanka joogo kamid yahay Cali Xaraare idaq darajo iyo inay ka faa'iidaan ka macaashaan lacag badan gabdhahaas qaawan ay ka sameeyaan qaarkoodna ay ka lacag u diray oo aan haayo kuwa ila soo xiriiray oo ay ka lacag ay u direen oo Nimca Joker ay u dirtay dabadeedna ay ka macaasheen inay soo galiyeen bartaas website-ka qof walba Google-ka ku qoro website-kaas wuu arki karaa gabdho badan oo Soomaaliyeed ku jira oo qaarkood nimanka oo Soomaaliyeed u galmoonayaan qaarkood cadaan ay u galmoonayaan qaarkood ayagoo qaawan oo wax sheegay ama ka hadlayo ay jiraan laakiin aniga waxa aniga aan sheegay maaha marka macna badan ma sameynayso in la soo galo maanta in qof uu yiraahdo maya carab asaan yiri maya intay ka dhacday maya kunjuroobe aheed waxa muhiim ah qofkii ayada joogto ayada inay hadasho ay tiraahdo aniga waxa igu wallahi ah oo igu billaahi ah oo igu tallaay inaan ka dambeenin xogtaas oo ay tahay wax been abuur ah oo ay ka dhaarato inay ayada ee gabdhaha Soomaalida ay geliso website-kaas galmada ee gabdhaha Soomaalida la soo geliyo ayada qofka beenin kara okay taada kale aniga waxaan iri Nimco hadda kor waxay tiri wali kufsaday oo video muuqaal laga duubay wax aniga been oo aan sheegay YouTube-ku ku jira ayadoo hadlayso indhaha u xiriyay sun cabto leeyahay maxaa suntu u cabtay oo ay ka sheekeynayso macnaa been ka sheegay macnaa caay marka aniga waxaan ka hadlay waa xogtana qofku uu naqdi kara asaan naqdi kara qofka fiiri ma aha qof guri jooga ma dumar waaye waa la qabaa nin caan ah waqti nin caan haduu qoomay gurigeeda seexato oo ninka uu biisho YouTube soo aaday irsaaqada ka raadisa okay lacag ka raadisa way hadashaa dad ay maagta 4 qabiilay maagta iyada hadasha qofka markuu gurigiisa joogo qof wax ka sheegay ma jirto laakiin qofka haduu yahay qof public caan oo la yaqaan wixii sax ah waa laga sheegaa wax caadi ah oo sharci ah marka taas waa taas ayadana hadda hadii wixii been ay yihiin ayadii qofkii nool ha ka dhaarta qabanayso qofka ma aragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadku uu daalcanaya Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qul al haqq walau kana murra
حقا هدو سبر وكقرار يا شيء أنا حوجان شيء أيضا حكدارته أنا وان كدارنا سين أيك أيكدم بيان قبلها الصومالي ده أو ولا شيء أو هو يده أو إيده أو قاون أو بسيدي السوقلي إن مع جوكر علي حراري يدخل درجة أيكدم بيان ووحن كتابكم مركرو معها مركب واحد معها وحال رأينا سيريوس الله هذا waxaa kale oo jiray muuqaalo aan daawanay oo kaga hadlayo Cumar Kirish oo loo yaqaano CK Cumar Kirish iyo adiga maxaa idinka dhaxay dagaal noocay ah idinka dhaxeeya halku ayuu ka soo galay dagaalka Nimca Joker iyo adiga ma santahay ma qadar markale adiga iyo bahda hor socod media aniga ninkan isma naqaan ninkan Cumar Kirish la yiraahdo isma naqaan wax aqoon isku maliin marka laakiin xogta waxaan hayaa in asiiqu dhiisa lacagta wax laga siiyay waxaan leeyahay warna Cumar orti Ilaahay ka baq ururkan adiga ay ku jirtid laga roonayaasha ka bax Ilaahay ka baq ururkaas waxaan waa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay Ilaahayna uu yiri ummadda waxa lagu istaajiyay oo la yiri war jooji waxaas baddo hadii kale waxaas aan kugu ciqaaba istaag ay ku istaagtay adiga orti Ilaahay ka baq taariikhda ninka aniga wax kale aan dhahay ma jirto laba sano ka hor waxa arki jiray asoo reer mataan oo abgaal ah أنا أرجع أو لا يرى متانا أحي أنا أق إن قديجة محمد ديري دديس أتاعي أو قف كفيري يحر قبيلة الصومالي وقو في عن واي يحر نكان يحر واي قديجة محمد ديري أو حي أتاعي دو وحال عمر عثمان محمد ديري الله قديجة محمد ديري دو ما أنت سمر صوت شايعان عمرك خوف نسبيات ديسة كفانا أو كف أو كعراي أو كحشونا نسبيات ديسة وحن ده أنا ما كان عمرك وحن ليه هاي أنت كبر المرة هاي وحنا لقينا النسبيات ده قصة نقط النسبيات ده شجع قفك وديوس هدول النسبيات دي سكعرّو قديش محمد ديري إيه ده لبص أنا كور أبقى لا شيء نيسي ما أنت مرصلها شيء نيسي مركو عن كلها صاحبه إلهي كبق قاف ربك وحان نسبيات ده وحاران قفك النسبيات دي سإنه كبحه أو النسبيات كله وشكت وحاران دينيا نم بناه دينيا وحاران قف marka nasiibada ku soo noqo ilaahayna kaga baq waxyaalaha asameynaysid ee ururka Malaysia ku dhistay ninka South Africa jooga adiga wax ii sheeg lacagta wada qaadataan waxaas iska dhaafan ku leeyahay marka intaas ka badan ma dhahayo hooshaada wado maali ilaahay kana ku soo digri arab ku hay marka intaas ninkaas ugu jawaabay ka badan in dhaho mara waa aad uma santahay Axmed Qadar kaasi wuxuu ahaa wariye Maxamuud Maxamed Daahir aad ayaa uu maasantaa wareysiga aad nasiisay waxaan ka wareysanaynaa arinta la xiriirta Nimca Joker iyo CK sida uu ku soo galay dagaalka Nimca Joker iyo Maxamuud Maxamed Daahir ka dhaxeeya aad iyo aad ugu maasantiin daawashada aad daawanaysan barnaamijyadeena fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar muuqaalkan like saar waan ku maasantiin daawashada aad daawanaysaan mar walba waxa ka go'an hor socod media inay bulshada u soo tabiso warar xaqiiqo ah ee lagu kalsoon hadduu alla idmo halkan waxa keeni doona shakhsiyaad caan ku ah ee bulshada Soomaaliyeed